waxa la yidhi nin baa habeenada ka mid ah xaaskiisii u soo galay deedna wuxuu arkay ciyaalkii hurda ma uusan weydiin ma casheeyeen wuxuu weydiiyay salaad ma tukadeen ciyaalkii ilaa markiisa meelaha inaan kaba fikrin booyaan waxay ku tirinayo salaadna ma aysan tukan way gaajoonayaan way seexdeen wuxuu ku yiri toosiyo salaada ciyaalka tukadaan u toosi waxay tiri ciyaalka cashana looma haye armay hadaan toosino inagu ooyaan oo qalqaliyaan oo moogta iska daawiriyo waxa siyo toosi aniga waxa la amray buu yiri ina ciyaalka salaada baro oo aan amro oo waliba aan ku sabro arsaaqoodana ilaahay baa hayo aan sabab u maro ay kaliya wuxuu yiri ilaahay buu yiri wa'mur ahlaka bis salaati wastabir alayha la nas'aluka rizqa ilaahay wuxuu amray buu yiri inaan awlaadayda iyo ahalkayga salaada amro oo waliba amarkaasi aan salaada amrayo aan ku sabro la dhibaatooda intay ka tukanayaan lima weydiin buu aanan moogtahay arsaaqooda qof baa riyado dhagan ugu xaas dhagan ugu baahed ciyaar way toosay salaada bay tukadeen ilaa markii salaadii tukadeen baa waxa ku soo garaacay leeyahay albaabka nin maal qabeennada magaaladaas ka mid ahaa oo sida saxan cunno nooc walba ay ku jirto maxay tahay cunnadani wuxuu yiri nin aan saaxiibanahay oo maal qabeenan caawa guriga ku casuumay ninkii intuuna cashadii cunin baan saf dhaafnay xashadii iga tagay wiiloo igu boodon waa nin iska maal qabeen oo deesaga waxaan habeen walba u cunaay wax lama ahay wuxuu yiri waxaan nidar ku galay buu yiri in aan cashada la baxo meel alla meesha ay han ku daale ee deecagtu socodku iga soo dhamaado in cashadaas dhigo oo idinkaana noqday buu yiri moogtahay waa kaas hadii sida aan uga fikirayno inaan arsaaq awalna awlaadeena iyo maxaa tiisansan uga fikirayno aan uga fikir lahayn inaan salaada iyo ilaahay barno waxaan say wax badan baa inoo hagaagi lahayo hadii ilaahay ku roon yahay